أخيار السلام عليكم. صلوا فعلوا. waxaan u malaynaa intan hadda meesha fadhido iga weyn waxaan iga weyn ma jirabo marka hadalka waan bilaabi waxaan ku bilaabi kor aad ugu mahli kari gogosha nin baa leh ninka Cabdullaahi Xuseen yiraahdaa leh intanna waa intii uu u dhigtay هذه أسرعنا هذا الكجيسن دونا أو وحو ربي وحو شيغنا أسرع شيغان دونا وأمكن جيسنينا أنك مركو وحنا السؤال شيء جواب بهدار بيلي وين نوضم بين يسا مركو ساسا جيرتاي وقال ننكي هذا كان ماشان جوجوشن وحكب حسن أو هذا الإيه ننكي وطه إسكجوجو حبيو سهلين هذا الكل هلا يوحنا جوجشن هذا الكل ماشان جوجشن يكو صابسنت نينك هلا إنه هلا ربو واحد جوجشن كو صابسن هكا والسلام عليكم ورحمة الله. وش النبى دكتور جوجشن وحي كو صابسنت هاي أسرع كهالي أسرع مركز سودوينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وإن والسلامي صباح وناكسن إن بدن بالاركا إن يركل مغنين مغالين حالي بان إماضي أن إماضي ضد وحاهن إسكور هيو أو وضح الله إسحريريان هن وحا هاد دمانت أن إنتو أتاقان هاني ضد كان دمانت وضي كور غوان وحانو مالين قف أنا التليفون كلها لين oo waxaan u soo socdaan u sheegin hadduu fadhiyo waa hal iyo laba dhammaan waad la wada hadalna walaalayaal waxaan wataa gogol siyaasadeed baan wataa waqtigana waa waqti dheer oo dhiman waxaan doonayno waa gambarka laga dheera ee 2027 walaalkeen baa maanta ku fadhiya waqti badan uu haray xilligiisa markii la gaaro in tolkayga ay ogaadaan application aan hor keensado inaan ahay musharax meesha ayada u joodo dadkii geel lahaana hadda aan hor taaganahay yaa inta u taagan mid koobaad yaa u taaganahay gogol bay ku dhibtaa goosha hadda aan fadhiyo goosh dalgeedi waa geedkaygi hoose application-ka awata wuxuu yahay in application-kayga la qaado geed Yusuf loo geeyo socodkayga saas buu ahaa hadalkan hadda inaan fara badiyo hadda ma rabi muddo fara badan hadda 9 bilood baan shaqadan ku jiraa dad badan oo kuwa gaaris ka imaadeen shanta baqi imaadeen madoogaashay ka imaadeen way la jiraan way banaanay man oo imaanay intaan aan arinta waday waa u soo geed fariistay ciidaha hoos waan soo maray barquuq waan soo fariistay cid degan waan soo fariistay madoogaasha dalgeedii jooga wixii jooga marka xaadir ahaa waan la fariistay warka waan soo bogay gaarsna waan soo maray gudyaashayna way dhisan yihiin wayna socdaan hadda ila socdaan ayaga iga dambeyn doonaan ayaga hadalka bilaabay doonaan hagi doonaan laakiin ujeedkayga iyo socodka inta u taagan waxa waaye wiilkiina Cabdullaahi Khayr Sheekh Xuseen Sheekh Faarax ahaa gambarka laga dheeraa buu rabaa application bota arjiga in laga qaado oo geedkiisii weynaa dalgeed fadhila geed loo geeyo meeshii wiilashii geed gooshada loo geeyo ayuu wataa socodkayga waa intaas socodkayga inaad garabkeena isiisaan oo gacanta ay qabataan oo application-kayga ii qaadaan oo geedka ay ii geysaan intaas baan ku socdaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرتا كلمة حق الله نوافجه. مال هذه السوء موضوع إلهي مقعيس أن لو حسن أو نبي أن لو وصلنا خسارين نقول دون طيب الوقت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ليلا ورت أنت كذب ضدك ولا عشان تهرب الصعبة جات يسولو الربا لما تدي كرا نين والبنديس كوجيها ماشى سكسوجها
waxaan wax la diidi karaa ahaan oo la ogsoon yahay mid baa shalay gogladay oo geed Yuusuf gogashiisa ay la taalo asna daraad ahaa aniga meesha joogo telefoon la ii soo diray waxaa wax la diidi karaa ahaan maanta waxaan u fadhinaa Cabdullaahi Khayr arjigiisa Cabdullaahi Khayr arjigiisa kii gaaraska imaaday kii shantaba ka imaaday kii madoogasha ka imaaday waxay u imaadeen waa inay raali ka yihiin arrintiisa inay qaadaan arrinta inay raali ka yihiin inay arjigiisa qaadaan arji bay sheegeen oo lagu celceliyo arji waxa waa walaal dalabkan baan watay qaado dalabkayga geed Yuusuf u gee waa soo hadasheen Soomaho aniga waxay ila tahay ka reeb banaanay ahaan walaalkiis baan nahay budugiisanay anaga arjiga waan qaadaynaa geed Yuusuf baan u geynaynaa maanta berigil iska hadli jiray lama joogo ee hebel ba saas u dheebeen buu sheegay waxa la dhigi jiray lama joogo hadalka hadda aan hadlahayo saacadan kuwana way duubahayaan hadhowna waa la fiirsan doonaa kuna hoosto telefoon ka dirahaya maxaa intaan hadda meeshan aan fadhiyo inaan ka markaysan intuu ka markaysan telefoon ma gaaras iiga soo diro hebel muxuu saa u leeyahay leeyahay hadalka aad dhageysta inaan ka markaysan telefoon ma gaaras iiga soo diro waxa leeyahay hebel muxuu hadalka ugu hadlahayaa markiiba nin inta jooga qoray uu diro wuxuu hebel waxa ku hadlahayaa وفانتين سمو أنا كيجا ولا قرها عبسي ولا هاب أنا كيجا ولا قرها وأنا لا درها ترى ميت أدون كنا ولا ولا فرسانها ورعقدات ما جرتو ولا اللي ما جرتا وأنا كورة ما هينو ورجيد يوسف بيهوش الله تعالى ورجيد يوسف حديه لبنو دل جد مقاضي أما وان قاضي بوديه أسأل أطالع أنت وحواي ولا كان أنجيد يوسف وجينه سو أنت اسمع الله إما يكون يقول ساسما ولا كان جيد سأنو جين عبسي معها تاس ولا كان أنت أرجع سقان أنجيد يوسف وجينه عبسي معها صح لو عبصانة مالها وحنا عقدنا ما جرتو كان ولا كان يقول لا بري يقول كوكرا صاص عضا ولا جين جيد يوسف جيد كبولو دad shay lagu kala reebi jiraa horeeya waxaan nasiib darre waxaad hadalka aad u dhageysta waxaan nasiib darre ninka marka la soo reebo coloobo oo toloobo oo cuqdad ka buuxsanto mar horaan bahasha sheeg waxay leedahay faqri waxay leedahay cuqdad waxay leedahay aakhar xuma iyo adduun xuma ayay leedahay walaalayaalow hadalka waan soo gaabiyo walaalkay arjigiisa waan qaadaynaa madoogaashaan geynayna hortay baad dhahdeen waan idinku raacsanahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan kaloo idinku dari bariga intii wax la sheegay la qarin jiray lama joogo soo hadda kuma hadlin meel kasto adduunka dhan kabtan iyo gaalka ayaa hadda laga fiirsan waxaan ku hadlaa been isma sheegay maanta hadhow hadalkaada waxba ka baqin ilaahay macbuudka ka baq ninka hadda diidana maxaa loo geeno geediis loo geen leh muxuu intuu noogu maad u dhibaa geediis looma geynaayo inuu dhahay aad moogta waraa dhageysta geediis looma geynaayo geed Yuusuf dalal geedi arji bay qaadeen arjiga waxay u qaadeen geed Yuusuf bay u qaadeen guf bay wataan geed Yuusuf bay u geynaayeen geed Yuusuf bay arrinta la taala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jirta waana waafajiyo annagii waalidiinteen iyo ehelkeennii wuxuu dhintay wuxuu nool Allah noo naxariisto muwaafaqan Allah na siiyo nimeeyahow ninkan goosha iska leh asagaa noo yeertay gooshiisana waan soo ajiibna waa imaanne waana nin tole waa wiilkeenni waa walaalkeen bili aadankana maxaa ugu xun baa le qabiil dhan oo wax hogaamiyo dalgeed maxaa la dhahaa ree cali uu hogaamiyaa indhaha ree cali waa ismana ogo lamana ogo marka asaga hadan dhibaato taagan taas waxaana maxay ku dhacay talalaan adduunkan maxaa ugu liitaa qabiil aan is ogeyn asagana aan la ogeyn bal horta ani maxaan rabaa inaan annaga is ogaano horta balna reer dalgeedinahay aan nahay midna aan noqon karno waxna aan wadan karno waxna aan dhisan karno horta inaan is ogaano yaa horta wanaaga taas ah horta midda kale annaga gaarsan ka imaanay maxaan rabnaa dalgeeda daatihiin wiilkan wuu hawoode in badan way hawooni asagana wuu hawoode inta badan hawoon doonto buu kamid yahay in applicationki uu watay aan naga qaadaan haddaad diin reer banaani iyo reer madoogaashabo oo dalilgeeda haddana haddaatiin aan ugu sii celini in aad hogaamisaan cali dhagweyn oo dhan markii dan la leey dalilgeedi yaa la maraa markii danta laga dhamaystana qalin beensol baa laga dhigaa ilmaha naaska dhigtaan qalin beensol ay ku dhigtaan kuwa naasiri
maanta buugguu tuuri berriuu soo tuuri caawa u gaday berriuu tuuri iluu galaastu iyo galaason ka gaaro tabtaasaat yani anag dalgii tabtaas waay waa qalin bensol dad kalaa u heesaysaan qalin bensol baa noqonaysaan maxaa loo baahan yahay inaad dadkiina u tashataan idinka annagana aan isku tashanno muwaafaqa aan raadsanno bah iyo boqorbo dadkeenan aan si fiican u maamulno oo laqdaw la'aan ah marka haddaad tihiin dalgeediigii Madoogaasha ka imaade kii bannaanay joogay anigoo ku hadlaya afka Gaaris wiilka ajriga u wato warqadda u wato applicationka inaa ka qaadaan ana ka qaadno salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay abshirtana oo fajiyo allah noo dam dhaafani waalidkeenbo nabadgelyo allah na siiyo maanta aniga waxaan ku faraxsanahay anigoo jooga bannaanay oo li idhahay kaale bal ka hadal waxaan saa u leeyahay kuma badnayn waan ku yaraa laakiin marti ma ihiyo nin reer dalgeedii baan waxaanan ahayn reer bannaanay dadkaygana wuu joogay saasaan ilaahay ku mahadinhayaa waad maqlayseen hadalka meeshuu u dhacayo siyaasa wayna naga dambaysaa inteenan haddaan dhimanna way naga dambayni hadda waxaa hadalkayaana sii badinayn Cabdullaahi Khayr dadku u soo hawooday waa dadkan hadda meesha fadhiyo dadku u soo hawooday uu raba inuu meel geeyo oo raba in garab loo noqdo dadkan kaata weeyo aniga ma labaynaya Cabdullaahi Khayr garab aanu noqono meesha uu socday codsanayana aan gaarsiino waxaan la qaban karnana aanu qabanno waxaan u qaban karnana aanu qabanno micnaha waxaa waaye haddii aan annaga waalidnahay idinkana wiilashaanada aad tihiin oo isaga la dhalateen dadkii uu raba inuu meel geeyo oo wata waa uun dadkan kaato geed Yuusuf baa naga horreeyo loo geeyay dalal geed meesha soo kuma idlo ma ku idil yahay maxaa la yiri meel hadduu nin joogo uu jooga haddii laba joogtana wuu ku idil yahaybo inta hadda meesha fadhida dalal geed ama saddex kala nugu jiro ما شاء الله ما شاء الله ترى ما أنت وين نجاكوا إكرتا إلهي ما هدو أسوقنته ما أنت ترى وين نجاكوا إكرتا ولا الله وحوان قعد سكرنا مركا وحوايا هيريا ذا نصار عن إسكرهدنو قال إن بين صول بنا هذا داي عبد الله أولا وحوي أنا يقول كي هدو ويل كوير وشوا مال رعلي وهدو سن ألدين شوا معوليان وشوا من ريد الجدة شو هدي له روح عليه ورا سيف فتحنا نوبر هنود أيه ولا تلا سعرنا الله ندعو هذا وأقبلي ده الجد ما دوسوا يا صرّع إنت صرّع على ده ننتظر سنة كاتيو شو ده أرنتاس إذا وحكوا إما تعدة كوا إما تماشي نفرد ده وقاس لماذا وكرامه كرامه يوضع معايا لأ أنت كاتنك أي قادته أي كرامه ده أديبته وكرامه يسنيه marka dadkii ugaaskii la dhashay baan ahayn ee walaalkii ahaa ee ku kabnaa baan ahayn ugaaskii asaga ahaa karaamadu wataa sidii loo karaameeyay buu awlihan doonta uu ku gudba annaga waaya waa xaqiiqdii hadda ogaada doonta lagu gudbo waa annaga marka dadkii baan nahay ayaan hoos ugu dhigay heeriyada aan iska ridno Cabdullaahi Khayr ha la qaado geed Yuusuf ha loo geeyo Yuusuf Ali ha loo geeyo awlihan ha loo geeyo sax loo qaado salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والدا سلام دمانتين وحان سلامة هي مضنها جوجوشن اسكالي عبد الله الشيخ حسين وعبد الله خيركم مغلر يدمان انت ماشي اسوء ماتي culummada odayaasha dhalinyarada hooyooyinka gabdhaha nin walba masabka uu jaan ku salaamay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam bacdigeed walaalahay horta ciyaar horta waxaa la waa gelin dambe siyaasadda markay bilaabato wejiga ay ku bilaabato hadduu qurxanaado وجه قرحان بيقول لما تا أنا وحيلتها هاي ضد ولا لبان هاي ضد قويس كو إبان هاي
meel kastoo loo kaco waxaan u maleen walaalnimada wax loo dhigo horta lama helayo horta saa ogaada waxa maanta aan wadno muxuu yahay marka qalin jaabka ku jira intaad nin kala baxda maanta jaab ma gishanayside codsiga wiilka uu wato waxaa weeye gabar baan doonahayaa gufti iga qaat dalalgeedii gufti inuu asaga qaadaa la rabaa marka wiilka adi haddaad dhashay oo adiga aabba aad u tahay oo aad gabar u doonayso nin walba wiilkiisa inuu guuriyo sooma rabo wiilkan intan meesha fadhiu rabo inuu gabar u doonto waxba hadalkii aanan idinku sii badinine muhiimadda markaan ka soo qaadanno waxaan u baahannahay gogosheeda waxay tahay lamadoogaasho geeli baa noogu qalan waxaan rabaa inta markaan ka baxnay madoogaasho inaan aadno xabaal waxaa liyi budhiga la'aan ma qodanto wiilka guftiisa geedkan inaan ku qaadnaan rabnaa oo dalalgeeda uu ku qaado markuu dalalgeedi gufti qaado wiilkii laga qaado ladhaho arjiga waan kaa qabanay la yidhaahdo dalalgeedi waxaa la rabaa inuu arjigii inuu qaado applicationka cabdullaahi khayr la qaado madoogaasha la geeyo geedi yuusuf loo dhiibo waa salaamantiin dadkan walaalkay meelaha fog ka yimid dhamaajali baa la sheegaya waxaa la sheegayaa 5 abaq madoogaasha anigu qudhay 2 meelood baan ka yimid gaarsina waan deganahay bangalna waan deganahay odayaasha meelaha fog ka imaaday ee dantan u imaaday reer dalgeed waa salaamantiin waa mahadsantiin sababtoo 5 abaq iyo dhamaajali dhul dhow maaha aniga xalay gaari soo qaadanay meesha u ka imaan yaa anagoo tabcaan inta imaan dantan u imaadeen ku mahadsantiin midda markaan gudaha u soo gala waxaa la ruwaa yaa la ruwaa hilib ma qaadi kartaa bale markaas uu ooyay ku isku dhuftay عوض أقول أمس محدود أوي واحد قاعد يلين حلو وهيلب أنا هنا معي روا سين وقاعد كريم ما أقدر كداي والوليد دي قفت يجوجش مقاعد أنا ما أقدر كداي جوجش وان قاعدني وعلى قاعد نكن الأبليكيشن كيس وعلى قاعد سو سمعنا عن تايدا محدود أمس الدين ما سوى تطبع عصناي تا أيدا وأنسكر عصناي جوجش واحد ما خلص وحفظنا الله ونضن لها نقول بنا هوليه ويلش أقول له لين بقفر ويل له سدع بقى وين متباير xoolo badan buu lahaa soo lahaa wiilasha ayaa gabar keen doon u kaadi uu sugay kii oo yaraba u keenay maxalli ku waweynaa joogay waxba dooran waayay hal sugo maldi soo agartay ma nin walba nasiibkiisu qaba ninkan waxa gooyishiisa lagu qaaday 3 maado u yahay horta waa reer deegaankan doqdo xanuunsan odayga xanuunsan deegaanka xoolaha dadka suuyo ka warqaba waa nin markaas la heli kara waa in hadda meel dheer aan loo sii mareenay waxaan kale oo qabnaa haddana dadkii hore soo maro odil uu naxariis ku dham ama wax maqalku ku dham sababtoo asoo yaraan baranay arintan wiilka aan soo qaadnay ee noo yeertay hawsha noo yeertay si cadaalad ah oo walaalnimo oo wanaagsan aan u filina salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daaf ismaaciil qaar baa liiraa waxaan ka hadli rabaa ninkan cabdullaahi khayr wuu noo imaaday buquuqa wuu nala fariistay gaasna waan ku aragnay haddana waan soo kacno daligeeda maanta intuu fadhiya daligeed wuxuu ka rabaa inuu qaado u geeyo geed yuusuf intuu ka raban waa intan annaga hadda maxaan wadnaa daligeedii yaan ku kuluna meeshan shanabaq iyo banaani meesha u dambays ligdhiga yaan joognaa shanabaq oo looga baxna waa laga imaaday gaarsan waa laga imaaday baashana waa laga imaaday waxaan u soconaa isku imaan daligeed waxaa waaye alla ilaahay maxamed ahalkii cabdullaahi khayr oo u socdo imbiinimo ligdhiga شاين ري جد يوسف على قاعد ولا يلا جد يوسف لوكنا وريحنا جد يوسف محيري دل جدو ري جد يوسف نكسو يستاهل الله يعلم ما هل لوكنا أنا هذا نكيم عوضنا عبد الله بن جينينا دل جد يوسف رعت جد يوسف من وحرة أنا عبد الله يقع وجين جد يوسف وأكل كان وضعنا أنا كان ضحى ونقصن جد يوسف يعني لجته أنت أسام وضعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أي سلام بعيد هذا لما نبضي لما نبيو هذا الجعيل اللي ما هلا رجوا حاوي نين دادي نين وده رج بدن أولا هيقول ري نين هاللي لما نقول بوها جاي أنت أنكو هالدين هاي ودن أيه أنكو هالدين كوشن عبد الله خير بس كله ده الجدي سان هذا وارك مال ودقيه وكي مانين ما وجرتب واقع مقام بمال واقعنا
geed yuusufna waan u geynaynaa wixii kale oo shaqo oo dhiman geed yuusuf baa kule annaga intiina laga raba wiilkan inaan qaadno geed yuusuf baa aabbihii oo dhalay geed yuusuf oo wiilkan aan keennay ogow aan dhahna keliya intaan weyaba shaqada noo talno wixii kale geed yuusuf u tallaa gabadha ayadeene ree cali way dhibtay gabar dhib badan cawliyaankay u fiicanta annaga way naga baxdaa duddu sanad walba annagoo daba ordayna naga carray laakiin cawliyahan wuu ka laba dhalaa naag hadday laba dhashane way degtay reerkay leed hal daa'ib annaga ka dhalnaa ree cali saan u leh balaayo nagu dhacay ma garanayo gabadhan daadhalkeene ayadana balaan soo noqono diinka akhrisanno ka tashan cawliyahan gabadhan labuu ka dhalaay maxaa halda annaga nagu xir ree cali hadaal dow maxamed hiiraan u dhisnay ka baxday cabdiqaadir carabduur baa qaatay yaa allahu yaa naftii baa suu inta geel aqalka dooda ka baxay dooda ka baxay yaa allah lagu soo qabto haddana waatan warre caliyow haa gabadha cawliyahan sidiisa aan u qabno gabadha dabada qori kaga gelinina wiilashan idinkana faraha badan leh gabadha suxun baad u qabtiin sida cawliyahan u qabo gabadha loo qabo intaa hadalballi iyo xibaar baa ka gelayaa laakiin hadalka halkii hore un weeye cabdulaahi khayr waan qaadnay geed yuusuf baanu u geynaynaa wiilkiisa suudhiya asagaa yaqaanaa assalaamu calaykum waraxmatullah waxaan soo dhaweynayaa insha allahu cabdirasaaq fooley cabdirasaaq fooley soo dhow السلام عليكم وسلامتي دمانتي وسلامتين قران سلام انك walaalkeen ay soo istaagay imbigan qaran u salaam haya Allah barakeeyo marka walaalayaal aan waxaan u maleen waxaan ka imaaday gaaris baan ka imaaday ciidaydana waa 5 tabaq anigoo aroos ku qabo gaaris oo waliba shalay marka iga dhamaaday inaan baxa aan rabo yaa ninkan isoo wacay wuxuu yiri waxaan rabaa inaad soo gaarto gaari hatta aan saarno waxaan kaga soo dagaaday meel dhaxdan kaga soo dagaaday marka alxamdulillah haddaan imaaday wuxuu yiri meeshaasan u jeedaa inaad banaanay i raacdaan wata yaan rabaa waxaan rabaa imbi baan u socdaa inay tolkii meeshii joogay la ii geeyo way ahaan jirtay dhibaato ma leh waxaa waaye waxaan u maleen maaldhowda mid geedkiisu waa gogladay kuwa kalena way imaanayeen kuna hadda wuu ku sii jiraa cawlahan oo dhan baa socdaa ninka ilaahay qor un baa qaadanay marka annaga waxaana faran hadduu walaalkii application noo keensaday inaan application ka qaadno haddaan dalal geedinahay yaa annaga horta nala wanaagsan marka waxaan yeelaynaa midda gooy soo maaha walaalkay waan qaadnay waana ka baxay aniga وانا سلام يا سلام بعدين عبد الله وان قادني دلقيد دانا وسو دوينينا arrintiisa gogoshan maanta asaga dhigtay oo uu ku mahadsan oo noo yeertay arada si khaas ah ima yeerinin ana walaal jacayl gaar soo kacay oo uu maadinka saaxiibkay u ahaa awaalna uu noo gal inta hor inta dhalinyar hadan waa nin gacan iyo si walba uu wanaagsan oo ehl waay si wanaagsan ee aan rabnaa jigtoosan baan rabnaa inaan sheegno waxaan rabnaa arinta hadda dadka ka dhawaajiyeen oo idil ay hadlana meesha ka hadleen waxay dhaheen walaalkan waan qaadnay dalgeedu waan nahay waana Cabdullaahi wuxuu rabaa in la qaado in dalgeedu loo geeyo geediisu loo geeyo madoogash goosh la dhigo ninka kaliya taagan Xasan yar wuxuu yiri aan ogna waa Cabdullaahi khayr marka hadlaysa dhinac iyo dhul baas leh Cabdullaahi waa dhinac taa farnad ku fiiqan ka jecel walaalkay abaal buu igu leeyahay aniga gaar ahaan aad saxan goosh dalgeedu ka hadasho waxaan rabnaa hadalka toosi runka sheeg waxaan rabnaa inaad dhahdo walaalkan waan qaadnay gooshiisa geediisuna anaga u geenaynaa oo tan weyn application kisaasan ku qaadnay dalgeeda daan wabillahi tawfiiq wa salaam alaykum arinta saasan ka baxaya Cabdullaahi soo dhow gooshaad waan qaadnay geediis waan ugu gudbinaynaa waad mahadsantahay anaga goosha ninka dhigtay baan hadda u taagan ma maqlaysiin ninka wax kala wato goolka la dhigto meel kale ha geysto meeshu ku sii asay ha geysto laakiin ninka gooshan noogu yeeray ee gooshan imaaday ee saako dhan loo hadlay ninka asaga banma ogolna hor raacsan anaga assalaamu calaykum reer dalal geedi waan idin salaamay odayaalka culummada dhalinyarada gabdhaha
dhammaan waan idin salaama ana magacayga waxaa la dhahaa Nuur Maxamed Siidiye waxaan ahay nin reer Madoow gaashe hadalkan hor baa loo dhameeyay aniga wax weyn oo ku darahay ma laho intii walaalahay ahayd iga horeysay meeshay mareen umbaan sii saxaaya Soomaalidana waxay tiraa hadal badan hama lagama buuxsho ninka walaalkeen Cabdullaahi Khayr baa noo imaaday annaga oo reer Madoow gaashe gogolshii uu wato noo keenay annaga dalalgeedii haddii meesha kumaana duuldhanayn inkastoo reer dalalgeedii aan meesha ku dhannahay ilaa qaybo fara badan oo ka maarmin baa naga maqnaa intaan kula soo hiranay waa intan annaga meeshii uu noo imaaday kolley warkii uu noo keenay wuuna anfacay waana soo qaadnay reer dalalgeedii baan u keennay reer dalalgeedii marka waxaan ka rabnaa guf baa naloo keenay guf haddii lagu keeno haddii in la qaado meeshii loogu talagalay la geeyo bay u baahan tahay reer dalalgeedii oo hadal badan ma sii qabo waxaan rabaa guftii walaalkeen uu noo keenay inaan wada qaadno meeshii loogu talagalayna aan ku sinno sidaasaan annaga ka soconnaa inaan isla qaadanana aan u baahannahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xasan yare mukhtaar soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعيق حسن يرى مختار بالدها ريد الجدي يعني هاي أضيق ريد الجدي مدوقاشة وجوغان هاي وسلامتي ربناني ولا كان application بوصور دكتة application كأودي دل الجدي بودي أول ربعين وقاف application كيغالي دل الجدي wuxuu u geed Yuusuf application-ka wuxuu u dhiibay walaalkay in la qaado geed Yuusuf loo geeyo ma isku raacsan dalgeed inaan application-ka qaadno geed Yuusuf geey soo isku raacsan bas waxaan sameynaynaa ana hadda oday baan ka Madoogaasha oo dalgeedi chairman baan ka Madoogaasha dalgeedi dalgeedi waa fariistay oo ay qabsaday ninkayga bidhaanta yar wuxuu ii qabsaday nin baa laga sheegay hor caana cad yaan ku gubtay waxaad baan ku gubtay annaga waxaan la fadhinaa tol badan tolkii badnaa aan la fadhin wax annaga dalgeedina rabo ma laho waxna rabo ma la dalgeed waxbana laguma falay annagana isma rabno ma shaqaa dhacday dalgeed gartiisa asaga uu leeyahay waa lagu rafaaday lama dhameyn karo balaayaa ka taagan laakiin geed Yuusuf ama raacal weyn ama Yuusuf cali wixii dhaxmar dalgeed rab uu kala siin tiisa maxaa Allah u dir ma shaqaa dhacday marka waxaan rabaa wiilka arjiga uu keentay wuxuu u keentay waa dalgeed in la qaado geed Yuusuf loo geeyo annagana laga rabaa dalgeed ma koo ama soo laba dalgeed waa wareysanaya koomi ama soo laba okay dalgeed arjigan uu qaaday uu geeyo arjiga kale ka daba imaado oo dalgeed anaga shaqo kuma lihi soo dalgeed waa ko application baa qaado geed u geysay mid kale kama daba qaadi karto haddaad ka daba qaado dawal baa ayun baa waxa leen jirtay ayun baa hadda raacal weyn geed Yuusuf calaadin buu ku eedi marka eedayaan anaga qaadanin hal wiil aan wadno gooshan gool ka horeyso kala ma jirtaa oo dalgeedii bas waa goosh ugu horeyso waana qaadnay waana geereynaa geed Yuusuf aan u geereynaa ساسات أنا إذا الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة بعض يمرت الدحات مركن شركة حيرنا هنا حدا يبان هذلي حدا وحنا أسوء استاجي إن إذا ما هاد عليه إن ده هو مع سنتين وإن كسر سعودي
gobashayda way ii fisaneed tol macaan baa iga soo horeeyay sidaan rabay baa ii samayseen waan ku faraxsanahay mahadna waan idin celinayaa arji waan watay application waa qaadeen meeshaan u waday inaad ii geysaan waad ogolaateen ani socodkayga intaas buu ahaa wixii aan doonayay haddii aad isiiseen hadalka oodna ii hadasheen hadalka aniga imatahay ii fur waa halkeli halkaana wuxuu yahay waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol